maanta hadda waxa yaala waa wax hore u soo socday laakiin waxa soo kordhay waxa waaye in diyaarada la kiciyay oo ciidankii madaxtooyada ay barakicinta si toos uga qayb qaadanayaan barihii la soo dhaafay waxaa la arkaya cagafyadii ciidanka xoogga oo dhulka lagu duminayo maantana waxaa la arkayay ciidamadii militariga oo dadka dhashiika ku ridaya waxaa la arkaya diyaarado joog hoose ku socda oo dadka cabsi gelinaya waxa ay la dirirayaan waa shacab Soomaaliyeed oo guryahooda degan oo dan yara oo noloshu ay culays ku tahay oo loogu talagalay dawladdu inay hooy fiican u hesho kala shaqeyso inay nolol fiican helaan inay waxbarasho helaan inay caafimaad helaan inay caruurtooda u helaan shaqo iyo mustaqbal wanaagsan meesha intaas ay sugayeen waxay la kulmeen xalay saqda dhexe ciidamo ku gadaaman oo garaac iyo dil iyo handadaad iyo cay iskugu daray arrintaas marka waa arrin aad iyo aad u foolxun arrin laga aamusi kara ma aha arrin laga filaayay dawlad mid waqtigeedu uu joogo oo uu sax yahay iyo mid waqtigeedu dhammaadayba lagama sugaynin marka waa uga tacsiinaynaa dadka ku dhintay allahu naxariisto inta ku dhimatay inta dhaawaca allaha caafiyo inta barakacdana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa bedel khayr qaba inuu siiyo sidaan wada ognahay hadal waa la sheegay wax badanaa laga hadlay arrimahan cid maanta ay mugdi uga jiro dulmiga dawladdaas waqtigeedu dhammaada ay samaynayso ma jirto waxaa dadka loo barakicinayo dhulkooda in la iibsado waa wax kale ma aha dembi ay galeen ma aha canshuur ay bixi waayeen ma aha dowladnimo ay diideen ma aha dhulkiina ama lacagta laydinka rabo keena ama xoogaan idinkaga kicinayna arrintaas arrin qabata dadka danyarta ah ee masaakiinta ah ee mudan in la garab istaago ma aha sida aan wada ognahayna dawlad sideedaba waxaa loogu talagalay dulmigan inay ka hortagto amni sugto cadaalad samayso kala dambeyn keento dawlad iyada xooggii loogu talagalay in amni lagu sugo oo nabad looga shaqeeyo oo argagixiso lagula diriro shacabkii ku barakicinaysa arrin laga aamusi kara ma aha magaaladan culaysyo fara badanaa soo maray culaysyo kuwaan ka badanaa soo maray taariikhay leeda waa la wada yaqaanaa maalin uunay heryada iska riddaa war muqdishoy maxaa kuu dhiman maxaa rabtaa inaad sugto goormaa heryada iska tuuraysa ilan waa wada ognaha taariikhdii kala duwaneed ee soo martay waa wada ognaha qof la arkaba wuxuu isleeyahay adoo gurigaaga iska joofa khayr qaba inta baxo oo dulmiga qaado adugu meeshaada nolosha ka wado laakiin sida walaalkay cabdikariim u sheegay nin gurigiisa la soo dumiyey nin hadda la duminaayo iyo nin loo socdo maalin dhawood waxaan u malaynaa halkan inaan idinla wadaagno xog ku saabsan haddii guryaha la dhameeyo oo dhulka la dhameeyo xaggee loo socdaa waxaa loo socdaa guryaha boosaska waaweyn laftigooda in haddana lacag lagu soo rogo oo la yidhaahdo digitka halkaa la gelinayaa lacag bixiya marka maalin walba gurigaagaa lacag ka bixinaysa baada oo meelay aadaysa aan la ogeyn runtii waa nasiib daro dowladda Soomaaliya maanta waxa u yaalla tiraday ka bateen kuma mashquulsana waxay ku mashquulsan tahay dhul xaggee laga sheegay halkaasay taaganta marka dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba dadka danyarta ah masaakiinta inay u istaagaan la rabaa waxaan rabaa mashhad muhiim ah inaan fahamsanahay oo quraanka uu noo sheegayo u eg maanta midka ka dhacay magaalada Muqdisho inaan soo qaato mashhadkaas waxa waaye aayada Ilaahay wuxuu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala alladheena aamanu yuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladheena yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha bal dhageyso aayadan aayadan waxay leedahay dadka Ilaahay rumeeyay ee jidka Ilaahay ku dagaalamaya dadka mustadcafiinta ee tabarta daran oo rag iyo haween iyo caruur leh oo leh Ilaahu qaryadan dhaalimada anaga bixi magaalada Muqdisho waxa ka dhacay dulmi mise dulmi ah dulmi waa dadka la barkiciyay maxay leeyihiin ii sheega
كواس وحي لهاين ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وحربتين لما أنت إن نكمل نغنو دتك أي كعبنا يعني دتكاس إليهين وظالمين دتك كجرا مقالدا قيب ما ربت أنا كنغط ما السبب قيب ونغط وملي مجرت متلا كل هذا هاي مقانك وحكي جارتي مش غدا وحكي كل هذا مية وكسور جدا مركب ماشان والله بصف صف وحن سميه مثل هالكوة يمد جدا وكسور جدا انت أسوأ مركب كيا دورا نيسا مثل كسور جدا دورا نيسا واجب يكوتها مركب وحنا مسنا أنا قد دولدنا وقت قد وقت ماضي وحي هذا إنه كم مشغول شو وده هذا يدبوه الشيسين يدورش سألوا قبتها شيء سلوية وحي هذا إنه كم مشغولان أمنك وحي هذا إنه كم مشغولان إن عندنا لباتين dadka hadda barakacay ma shabaab barakacay ma dawladda shisheeye barakacay maya dawladda barakacinaysa marka maxaa u maleynaysaa dawlad waqtigeeda dhamaaday ee haddana dadkii barakacinaysa dadkan waxay ahaada guryo inta loo helo oo dhul loo helo loo dhiso la dejiyo ahayd xataa hadday caqli leeyihiin dhulkan ay gadayaan intay dhul kale ugu gadaan oo u dhisaan oo koronto u galshaan oo biyo u geliyaan oo iskuulo u dhisaan ay gey kareen lacag badan uga soo haris laakiin aqligaas ma jiro maxay wax ka soo haraayaba male wax walba in la qaataa la rabaa billaahi calayk dad oo basiiba ka hari waaye shidaal ka warrama inay qodaan oo shidaalan qodayna ay ku dhahaan ugu qanciyaan ya aqligal ma noqonaysa amaanaha diin la waayana adduunyo waa dhamaatay dawladda sideedaba waxa looga fadhiyo amaano iyo cadaalad taas looga fadhiya waxaan rabaa dhalinyarada la marin habaabiyay ee ciidanka ah ee loo dhiiba xabadda dhagihiina ku maqlaysa maanta wiilku waxa uu ku hadlay askariga wax xabadda riday hordadka xabadaha loogu talagalay in lagu rido kuwan ma aha macrakada marka la joogo oo shabaab la hor taagan yahay waa fulay waa soo carartay marka shacabka la xabadaynayo geesiyaata lagu ma celi karo yakhzi عليك وهذا محمد عرور يهوان يوايل يضل حنونسن إن بركة عسود الشو تصل ومكين المشي وحللنا سراكيش عيد ماذا حد الدولة ده أرين مصير كذا وفي عينها معها أرنتان صوماليا مالحون أي وضع هلا جو أنت يجارو جارتا هلا جو تذكر صوماليا الملا جوكتين فلان لماذا ضافة guryaha ku jirtiin dhaafa u soo baxa dadka masaakiinta oo garab istaaga